ugu yaraan 73 tahriibiyaal ayaa lagu soo waramayaa in lagu leeyahay xeebaha dalka Liibiya kadib markii ay degtay doonta ay saarnaayeen talaadadii sida lagu sheegay bogga rasmiga ah ee Twitterka ay leedahay hay'adda socdaalka adduunka IOM ee dalka Liibiya. 7 qof oo kamid ah tahriibiyaasha saarnaa doonta ragmatay ayaa ka badbaaday waxaana doonta saarnaa in ka badan 80 qof kuwaasoo la sheegay inay ka soo amabaxeen deegaanka Qasr al-Khayr ee bariga magaalada caasimadda ee Tripoli ee dalka Liibiya waxayna ku sii jeedeen ayaa la yiri Yurub. ilaa ay hadda 11 qof oo meyd ah ayay si wadajir u soo saareen hay'adda bisha cas ee Liibiya iyo booliiska deegaanka. hay'adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in 7 qof ee ka badbaaday doonta ay ku soo noqdeen xeebaha dalka Liibiya ayagoo xaalad aad u daran ay ku jireen isla markaana hadda la geeyay isbitaalada ku yaalo gudaha magaalada Tripoli. Liibiya ayaa noqotay marinka ugu weyn ee tahriibiyaasha doonaya inay gaaraan Yurub ayaga oo mara marin qatar ah oo saxaraha iyo badda Mediterranean-ka. Masiibadii ugu dambeysay ayaa ka dhigaysa tirada dadka ku dhintay halkaasi tan iyo bilowgii sanadkan oo kaliya 130 qof ayay tiri hay'adda IOM. sida laga soo xigtay mashruuca muhaajiriinta maqan ee hay'adda in ka badan 1450 dhimasho ah oo soo galootay ayaa la diiwaan galiyay sanadkii tagay ee 2022. in ka badan 17,000 oo dhimasho ah iyo dhaawac ayaa halkaas laga diiwaan galiyay tan iyo sanadkii 2014.